السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal cusub oo kale muuqaalkan waxa aynu kaga hadli doonaa akoon ku saabsan shirkadii cusbayd ee Profimka ahayd ee dhawaan soo bandhigay taasoo ah City Traders Imperium. akoonkan cusub waa akoonka aan qof kasta oo dhalinyaro kula talin lahaa in uu shirkadan ka qaato. shirkadan akoonna kala duwan bay bixisaa, qaar aad iyo aad uma habboona oo magaranaysa qof trader ah oo dhalinyaro ah oo jeebkiisu iska yar yahay in uu qaato kuma habboona. laakiin hal akoon anaguna aan tijaabinay faa'iido fiican aan ka sameynay, qof walba oo faa'iido fiican ka sameyn karo ayaan idin soo bandhigaynaa. muuqaalkan waxaan rajaynayaa in aad like saari doontid, sidoo kale aad subscribe noo saari doontid haddii aad nagu cusub tahay, sidoo kale commentiga wixii dhiirigelin ah ama su'aal ah nagu soo weydiin doontid, sidoo kale aad ku soo biiri doontid Telegram-keena Som Invest oo linkigiisu yaalo muuqaalkan commentigiisa koowaad ama description-ka muuqaalkan. marka koowaad marka aad ku soo biirtid Som Invest aad linkiga ka soo heshid groupka Telegram-ka Som Invest ama channel-keena Som Invest, ama sidoo kale muuqaalkan hoostiisa commentigiisa koowaad ama description-kiisa muuqaalka linkiga yaala ee City Traders Imperium. markaad click soo wuxuu ku keeni doonaa shaashad sidan oo kale u eg. shaashadani waxa ay matalaysaa website-ka rasmiga ah ee shirkadani ay leedahay, taas oo ah linkiga saxda ah ee aan fake ahayn. marka linkigaas soo qaadatid saaxiibayaal waxa aad iman doontaa website-kan, kadibna waxa aad dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay challenge ayaad click siin doontaa. waxa uu ku soo saari doonaa dashboard sano eg. dashboard-kan ayaad hoos u raaci doontaa, kadibna akoonada challenge-ga ah halkan ayay yaalin. laba challenge oo laba nooc bay kala bixiyaan, mid one step challenge ah oo hal step oo kaliya la maro, midna waa two step challenge oo laba step oo kaliya ayaa la maraa. marka kan two step challenge-ga ah ayaynu inaga maanta doonanaynaa. akoonada ay bixiyaan wuxuu ka bilaabmaa 2500, 5000, 10000, 25000, 50000 iyo 100000. maanta muuqaalka aan idin duubayo ama akoonka aan idin doorayo waxa weeye kan 50000 ah. waa akoon qof waliba ay u iibsan karo, qof walibana uu ka sameyn karo dhaqaale fiican. waana akoonka ugu dhaqaale fiican leh. akoonada 5000, 10000, 25000 dhaqaale saas oo badan kama sameyn kartid, waqtigan waa kaaga lumi karaa oo laba challenge maadaama aad maraysid. marka saaxiibayaal soo dhawaada, kan baan isla eegi doonaa, kadibna waxaynu u gudbi doonaa sida la isaga diiwaangeliyo iyo habka loo raaco. marka 50000 challenge ayaan click siiyey, hoos ayaan soo baxay. halkani waxa weeye faahfaahintiisa oo dhameystiran. marka haddaan faahfaahintiisan aan guud cararo, phase 1ka time limit wax la yiraahdo kuma jiraan. haddii aad 5 bilood haysanaysid iyo haddaad bil haysanaysidba waad haysan kartaa akoonkan adaa iska leh. profit target-ka waa 5000 oo 50000 ah. profit target-kiisu waxa weeye 10% ama 10%. maximum daily down downka waxa weeye 5% oo ah 2500. 2500 marka 5000 loo eego waxa weeye 5%. hoos haddii aynu soo degno maximum down downka oo statistic ah. statistic macnaheedu waxa weeye faa'iidada aad ku dartid maximum down downkaagu kula kordhaya, taasoo la macnaa haddii aad 15 haddii aad 10% ku dartid 10% hore waxa kugu biiraya 5% ka khasaaraha guud wuxuu noqonayaa 15%. marka maximum down downka wuxuu noqonayaa 10%. 5000 marka 50000 loo eego waxa weeye 10%. minimum profitable days-ka maalmaha ugu yar ee la rabo inaad faa'iido ka samaysid challenge ugu gudubto 3 maalin. 3 maalin ugu yaraan waa inaad trade galaysid oo faa'iido ka samaysid. maalinka 2 maalin haddii aad faa'iidada ku gaadhid, maalin saddexaad waa inaad furtid si uu aad furtid oo faa'iido ku dartid ka xidhid dabadna 3 cisho kaliya waqtigaaga ugu soo koomo. fee-ga refundable-ka ah ee lagu soo celinayo waxa weeye isagu 359 waana lagu soo celiyay marka challenge-da ka gudubtid. phase 2ga time limit isagu sidoo kale ma jiro. profit target kii hore uu ka yar yahay, markan waa 5%. 50000 marka loo eego 2500 waxa weeye 5%. kii static ahaa ee down downka maximum-ku isagoo 10%kiisii
saasuu soconaya isaguna. daily down daronkuna isaguna waxa weeye 5% kii saasuu isaguna soconaya. marka kan targetkiisu waa 5% ma si maalinlaayna waxa weeye 5%. minimum percentage kana waa 3 maalin waana la mid. waayahay labada challenge marka goobtay fiigagana lagu soo celiyo waxa aad bilaabi doontaa account funded ah. account funded ka time limit ma laha, faa'iidada xilliga ka sameeyay baad kala bixi doontaa. profit share lagu ogol yahay waxa weeye aad qaadan doontaa dhowto 80% ka bilaabma ilaa 100%. marka waxa jira wax loo yaqaan scaling, marka staad lacag ku dartid waa markasta oo account-kana lagu weyneynayo share kuna uu ku kordhayo. maximum down daronka daily-ga ah waa 5% kii. maximum statistic down daron oo isaguna wali kula socda oo ah hadii aad faa'iido ku dartid waxa kordhi doona khasaaraha guud oo isaguna markii hore ahaa 10%. targetka scaling targetka waa scaling balance leeyahay. inta marka aan ka nimaadno waxaynu eegi doonaa account-kan content-keena ah bal in aan iibsano. tusaale ahaan haddii halkan aad iska dhufatid oo kale marka hore waxaa la rabaa inaad sign up aad samaysid. marka commentiga linkiga commentiga yaala baad kasoo samaynaysaa. halkan start CTI challenge ayaad click siinaysaa. CTI challenge wax kale maaha, City Traders Imperium weeye. marka aad click siisid waxa uu keeni doonaa shaashad sidan u eeg. marka waad sign up garaynaysaa. haddii aad mar account ku lahaydna account hore aad ka iibsatayna login baad samaynaysaa ama hore isu diiwaan gelisay. haddii kalena waxa aad sign garaynaysaa intaan. marka first name ka halka magaca ku qoraysaa, magaca koobaad ee passport sidoo ku qorayaa ama ID ga aad rabtid inaad isticmaashid. haddii qof kale kiisa isticmaalaysid kiisa umbad ku qoraysaa, wax mushkilada ma laha. halkan last name ka ayaad ku qoraysaa magaca ugu dambeeya ka aabaha aan ahayn, isagana halkaas aad ku qoraysaa soo email-ka ugu qoray. halkan email-kaaga aad gashanaysaa. halkan password-kaaga oo adag oo sidaan oo kale imka strong password dhinacan midabada asaasi waxay tilmaamayaan waajibaadka laga rabo in password-kaagu yeesho. number 1 waxa weeye lower case waa inuu noqdo xaraf yar, upper case-na waa inuu hal xaraf weyn noqdo. hal number 1 ku jiro 8 characters long waa inuu ugu yaraan 8 uu ka kooban yahay. optional-ka isaguna waxa weeye 1 inaad ku dartid calaamadaha sida at iyo calaamada dollarka iyo percentage iyo waxaas. country-ga halkan baad dooranaysaa. Soomaaliya waad ka helaysaa, waad dooran kartaa. halkan haddii aad Google search-ga asaasiga diinaysaa kadibna halkan baad click siinaysaa kadibna sign up for free ayaad oranaysaa. marka maadaama aan account horena qaadanay imkana aan rabo inaan isku tuso ayaa kan login ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa. wuxuu ku soo saarayaa halkii email-ka aad gelinaysay iyo halkii password-ka aad gelinaysay. marka halkan email-kayga hore account-na ku qaadan jirnay baa ku jira sominvestcompany@gmail.com. halkan waxa ku jira password-kayga. marka password-kaygan halkan click siin maayo si aydan u arag. login ayaan oran doonaa. marka aan login idhaahdo waxa uu ii soo saari doonaa shaashad sidan u eeg. shaashadan ayaad account-ka si fiican uga qaadan doontaa. marka halkan start challenge baa ku qoran. account-kaaga already waa lagu diiwaan geliyay. halkan address-ka ayaad ku qoraysaa. marka address-kaaga haddii aad magaaladaada magaceeda ku qortid iyo haddii aad xaafadaada magaceeda ku qortid waa isku mid. marka waxaad ku qoraysaa xaafad ka mid ah xaafadahaaga haddii 26 June oo kale aad adeegsi deegaanka oo kale ama degmooyinka hodan district aad ku qortid ama kilometer 4 aad ku qortid waa okay. halkan city magaalada ayaad ku qoraysaa aad ka joogto wadankaaga. haddii aad Muqdisho joogtid, haddii aad magaalo kale joogto, haddii Afrikada kale joogto ku qoraysaa. adiga waxa laga rabaa in address information-kaaga uu hadhow tawaafaqo waraaqdaada bank statement-ga aad ka soo qaadan doontid proof of address la yiraahdo waa in uu waafaqo waxaad halkan ku qori doontid. sidoo kale dad baa jira aan heli karin ama ku qorta magaalooyin kale oo hadhow caqabad ka timaado, kuwaasina anaga nala soo xiriirayaan. qof kale proof of address-kiisa ayaan uga bedbedelinaa magaca iyo meesha uu joogo waxyaabahaas oo dhan. horena markaan soo uga bedeli jirnay waxaan uga bedelinaa saasaan ugu fududeynaa. marka qof kasto ciladaas soo footaarta ama cilada kale oo KYC ku saabsan fadlan la soo xiriir saaxiibayaal. waan idin caawinaynaa si free ah ayaan kugu sameynaynaa. proof of address qof kale ayaan kugu bedelinaa ka aad rabtay ama ka aad horta isku diiwaan gelisay. marka imika iska sax insha Allah haddii intaanad hawshan aad gelinaysid. halkan magaalada ku qoraysaa kan postal code-ka Soomaaliya 00 aad iska qortay 40 waa okay.
halkan wadanka ayaad ka dooranaysaa Soomaaliya by default ayaa anaga noogu samaysan tahay maadaama aan akoono hore ku gadanay. waa kan hadaba halkan ayaad hadaba ka dooranaysaa akoonkii aan kadar ku soo sharaxay. marka waxay bixiyaan one step challenge, two step challenge, instant funding iyo instant pro. laba akoon oo aan wax challenge la maraynin iyo laba akoon oo hal challenge la marayo. marka kuwa challenge la marayo hal step iyo two step. marka kan two step ka ayaynu dooranaynay click ayaad siin doontaa. marka keen tirsiis hoos ayaa soo degi doontaa balance-ga balanka dooran doontaa. ka inagu dooran jirnay muxuu ahaa saaxiibayaal, wuxuu ahaa 50,000 keenu. marka dashboard-ka gudihiisa ka dooranaysaa weligaas ka sax 50,000 ayaa dooranaysaa. haddii aad kuwan kala dooratay wax mushkil ma laha, laakiin anu kan baan faa'iido iyo qiimo yaraan iyo wax walba ku arkay kaagan iska dooro. hadaad lacag weyn haysatidna kan 100,000 ayaad qaadan kartaa oo kasii fiican oo kasii faa'iido badan. laakiin kan baan dhalinyarada dhexdhexaadka ah ee Somifest ku jirta badankooda kan bay gadan karaan. hoos ayaad soo degi doontaa platform-ka aad rabtid MT5 ayaad click siin doontaa. kan isagu weli ma siinaya match trader. marka laakiin MT5 kaaga ayaad iska qaadanaysaa. hoos ayaad soo degi doontaa payment method oo habkii aad ku iibsanaysay akoonkaaga. marka saddex option ma haysanaa. pay with card baa ku qoran kana crypto, kana waxa ku qoran pay with wallet. marka waxaad oran doontaa adigu haddii aad card haysatid kan baad dooran doontaa. halkan card number-kaaga ayaad gelin doontaa xarfihii dheeraa ee card-kaaga ku qoran. kadibna halkan name of the card, magaca card-ka uu ku qoran yahay ayaad click siin doontaa. halka ku qori doontaa expire date-ka, bisha iyo sanadka. card-kaaga fadlan waa xagga dambe ka qoran. kan waxa weeye card code-ka weeyaan C baa la yiraahdaa. waa 3 number oo card-kaaga dhinaca kale kaga yaal. fadlan card-kaaga xagga hore waxa kaga qoran magacaaga oo 3 number-kii card-ka dheeraa, laakiin xaggiisa dambe marka uu wareegtay 3 number oo yar ayaa ku qoran. marka 3daas baad halkan ku qori doontaa. halkan ayaad click siin doontaa. marka dambe total price-kaaga waa intaas. halkan ayaad click siin doontaa kadibna get funded now ayaad oran doontaa. marka anaga maadaama aan akoon hore iibsaday baalkan aan ku iibsaday waad iska deyn doontaa. haddii aad coupon code haysatid kan baad yes oran doontaa. kadibna halkaas ayaad gelin doontaa coupon code haddii uu jiro si uu qiimo dhimis kuugu sameeyo. marka Somifest ayaan badanka qiimo dhimista ku sameynaa. Somifest haddii aad taabato kale hadduu keli kuu sameeyo marka imika not found ayuu ku leeyahay maadaama aan wax qiimo dhimisi aanay jirin. marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa in inta raaci doontaan get funded marka taadid si toos ah akoonkaaga ayuu iibsanayaa. laakiin haddii aanad inta aan awoodin annagaad WhatsApp-ka nagala soo xiriiri doontaa. WhatsApp-ka igu yaalaa muuqaalkan hoostiisa. sidoo kale Somifest Telegram-keena ayuu yaalaa. click baad soo siin doontaa. wax kasta oo su'aalaad soo weydiin doontaa waan kaaga jawaabi doonaa. si free aan ku caawinaynaa. haddii aanad proof of address aan haysan oo ku sameynaynaa. haddii passport ka dhacsan yahay ama aad passport ba haysan kaarka Nira isticmaali doontaa. haddii Nira aad haysan waxaad sameyn doontaa qof kale oo kuugu dhow ayaad waa passport-kiisa ka qaadanaysaa. magaciisa un badan ku diiwaan gelinaysaa. email-ka iyo password-ka aad haysanaya. proof of address-kana anaga ku sameynayna. akoonkana saad ku iibsanaysaa, lacagtana saad ku shaqaysanaysaa. marka saaxiibayaal haddii aanu qofku haysan Mastercard-na sida ugu fududeynka Soomaaliya lagu sameeyo waxa weeye waafi dhixiisa ayaad ka sameysan doontaa. adigu aan xarunna aadin meel kalena aan aadin ayaad halka waafi dhixiisa ka sameysanaysaa. lacagtaada EFC-ga ayaad ku shubanaysaa. waafi dhixiisa ka shubanaysaa. haddii aad saad isticmaashid iyo haddaad sahal isticmaashid e-dahab isticmaashid e-dahab kuma jirto laakiin haddii aad saad isticmaashid waa ka shuban kartaa. marka halkaas Mastercard-ka kugu jira. marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa in wax kastaba ay fududaadeen imika. marka aynu lacag ka sameyno forex trading, lacag aynu ka sameyno sidoo kale aynu dhaqaalaheena kor u qaadno. dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay u taagan tahay Somifest inay caawiso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay caawinaysay laga soo bilaabo 2019 bishii koowaad ayaanu aasaasnay. Somifest group waxa barigaas Somali Traders loo oran jiray. kadibna magaca academy buu noqday. barkii daba course uu bixin jiray. aakhirkii wuxuu soo shubtay inaan qof Soomaali aan lacag ka qaadin ee uu dadka dhalinyarada Soomaaliyeed uu shirkadahan kala taliyo oo ka caawiyo. marka waan idin soo sameyn doonaa insha Allah document wixii aan qabanay, profilmada la soo shaqeynay, inta ay ahaayeen khibrad aan u leenahay profilmiska loo yaqaano
sida aan u baadhno, sida aan akoonada dadka dhalinyarada ula baasino. marka soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa muuqaalkan like noo saari doontid, commentigana wixii su'aalaad qabtid nagula soo wadaagi doontid, sidoo kale nagu soo biiri doontid telegramkeena Somifest inaad kusoo biiri doontid. muuqaalo kale oo faahfaahsan insha Allah weydii soo wadnaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.